waxaan rabay sheekh inaan weydiiyo jazakallahu khair waxaa jira dad Soomaali oo badan oo ridoobay Nairobi qaarkood inay joogaan inta badanna waxay aad u isticmaalaan social media sida Facebook-yada pages bay ku leeyihiin qoraal bay ku leeyihiin hatta pages aan arkay oo Facebook aan ku arkay waxa kamida mid ay nolosha cusub u bixiyeen waxa lagu soo faafiyay boogii bari dhaxdaas hay'ad حد كردده محاك كورونا ها تردين جرتي أي عقار كل لجوء سوف فيه مركب وحين يقين صدي نكى يعني أسبوع صار صار إنه حقلا ده إنه كيم ده أما يعني فكر كنا زود تاجر سنين مركب صار درادة قاب كوجو أنا أحسن قليها سلوجه هرتي كرو أنت بدنا ولي بحق وحي صار السوشيال ميديا يو بدينهين هذين نقطة بالتوجا هذين نقطة فيسبوك هذين نقطة يعني أنت قايبها كله مركا عارفون النيروبي ذن بين الجوجان ويقال لنا كفافيان ومدي الصومالية إن المسلمين تعيننا نارت لحين يعني مركا قابك هو نكسينا قلا داس لو جه هرتي كرو يجدوا مارتي سوى الجيرة وعن جزاك الله خير هذي السوشيال ميديا استعمالها ويدكم محل قوانيس يا وريدكم الله بقى توبيسان السوشيال ميديا maxaa u barateen hadayna dacwadu ku faafini iskuulaad ka baxdeen iskuulaad dhigataan muxuu ahaay ma baadilka idinka xoqoda ki baadilka watayba waa ku soo daadinaya xaq ku daadi adigana ya xaq ku daadi meeshii galaan waa in xaq laga daba geliyo tabar darro waxa ugu filan in kayda shaytaani kaana daciifan soo ilaahay ma dhihin inay social media iyo darbiga gadaashiisa wax ka soo tuurtuuraan mooye banaanka isma soo dhigi karaan ya kii biuga qoray oo xogaa madaxa soo yara taagay wixii ku dhacay waa looga Sooma marka ar banaanka iskeena dacfigooda waxa ku tusaya iyo tabardaradooda darbiga intuu miiska hoostiisa galo meesha wax ka soo tuurtuuray marka taas ku tusay inay muxuu ahay wax la aan yihiin